haddii la yiraahdo Israel taariikhdeeda ka sheekee waqti dheer bay qaadanaysaa ma aha mid ku soo koobmi karta fadhiga aqalka dhanka fadhino waxa weeye taariikh sanooyin soo socotay ilaa laga soo gaaro xornimo Soomaaliyeed iyo dawlad Soomaaliyeed nagu dad waxaan ahay xornimada baan ahayn xornimada baan noo caday kii dhinta waa la duubahayay kii hadda sakaraadana hadda ilaahay baa ka kicirayay waxaan u eegnay ma jirin isbitaaladana lama geyn jirin wax isbitaal la geyn jiray ma jirto wax loo nixi jiray ma jirto muraadkoodu wax kala ma hayna dadku ha arko wax xun in la diidi karo waxa xun in dhibaato loo mari karo diideed in lagu dhiman karo annagu lacag ma lahayn oo cilmi ma lahayn oo wax dawladda caawiya ma jiro idinku lacag way idinka baatay barfasalooda noqotay caalimka haddana caalimka annagu caalimna leynaya maya caalim aan wax weydiisan jiray ma jirin haddii lacagtii la eeday oo tacliintii la eeday oo haddii la kooyo caalimkii loo helin la eeday oo dhan loo socdo la aqoon waayey haddii adigu waa ka tahay كالنواقيا لكل الدنيا ليك دين الله يودي نواقيا لكل الدنيا ليك دين الله يودي waxay ku bilaabatay SYL sababtay ku bilaabatay waxa kamid ahaa wadanka markii hore isticmaar baa joogay Talyaani ah isticmaarkaas oo muddo 50 sano ah wadanka haystay isticmaarkaas oo u diiday Soomaalida xorriyadda qol u diiday isticmaarkaasoo dadka Soomaalida aan ogolayn inay shir suubiyaan ama isu yimaadaan apartheid baa jiray ka soconaanta nin cadaan hadduu ka hor yimaado ama naag cadaan haday ka hor timaado saas fajisada u salaamaysa waan istaagaysaa haddaadan salaamin waa lagu qabanayaa station kan uu geenayaa waa lagu karbaashayaa waxa lagu suuq ahaan baa lagu geenayaa dadka meesha suuqa baabuurada laga daaro dadka ka koraan inta la geeyaa lagu karbaashayaa qofka habeenkii 15 May 1943 meel qol oo yar ayaan ku shirnay qol yar markaas ragga isugu yimid meesha tan isugu yimid waxay ahaayeen rag mutacalimi xoogaa cilmi leh shirkaas Yaasiin Xaaji Cusmaan wuxuu ka soo jeediyey in aan Ingiriiska warsanno xisbi ma aha siyaasi ah maxaa Ingiriiska waqtigaas wuxuu ahaa dagaalku ku jiray security ka buu hayay marka siyaasan galayna lama oran karin markaas wuxuu yiri aan ka dhigno xisbi ah dhalinyaro wax asaasi oo siyaasi ah kuma jirin ee waxay ahayd bal horta dhalinyaradu
ha isbarato meel ha isugu timaado waxay iska ku kala bedeshaan marka haddii la kala maqan yahay wax dhisma sheegi karo laakiin haddii la isu yimaado waxba dhalan karaya iyadiiba waxay ku dhalatay si ay u socotay in la yidhaahdo warnimayo waxaan qabsano dadku waa bislaayeen soomaalidu waa bislaayeen waxay u bislaayeen inay xorriye qaataan laakiin waxay rabeen dad yacni dhacsiiya sida xorriyada loo qaadanhayo iyo sida maxaa la yidhaahdaa loo halgamhayo iyo sida maxaa la yidhaahdaa adduunka loogu faafinhayo sharafta soomaalidu leedahay anakay noqotay dhallinyaradaydii yay noqotay inaan intaas oo dhan u faafino dadkii yaasiin sida xaaji maxamed xuseen ii sheegay xiriir buu nala sameeyey wuxuu muddo intii ah nagu geesinimo geliyay inaan waxna akrino idaacaadkana aan dhegaysano ninkii carabi yaqaana idaacaadka carabiga u dhegaysto ninkii yaqaana talyaaniga uu kan talyaaniga dhegaysto ajiraha carabiga BBC da carabiga ah laakiin waxa dhageysan jiray odayaal ba dhageysan jiray kaliya si u barta ingiriiska luqadda ninkan yaqaan waa dhageysan jiray ya laakiin qof raadiyo haystaba hal raadiyo yaalay dadkiiba horta banaadig baa horta waa la walaaloobay oo qofka hadda markii la qoraxayo waxaa lagu dhaarinayaa Soomaali yahay baa lagu dhaarinayaa shashi ma laga qaadaya bishiina xaluun qofkaas waa safraya xamar uu ka baxaya magaalo u ku xigta iyo oranaysaa meesha ma joogta haa awka meesha laga waa ka qofku waa tagaya saddex far qofkaasi wuxuu soconayaa halka hadduu ka tagana meesha Soomaaliya ugu dambaysa ilaa afmadow kii kasoo ka yimaada wuxuu tagayaa ilaa Soomaaliya buu tagayaa sharshin bixin maayo waa yaa bayada gees ilaa gees waxaa safarka dadku isdhex marayo oo qof waliba uu saqoy raadinayo lagada awaaranayo meesha uu ku dagahayo wixii baa inta la jeclaystay oo la walaaloobay oo haddii la kuwa isu danoo noqday baa aad iyo aad maaragtay isugu xigoyo waxa walaalay waa mid daaweeya wax kale maaha waxaan halgamayn iyo waxaan calan jeclayn ma aanan qabin meel baan ka wada dagaalamaynay caqli baa nagu wada jiray in calankaa un la suro baa dantayadu ahayd nin la qasbi jiray ma jiro nin walba niyadiisa inuu ku socday iyo calan hel dhawaqa dhawaafay Soomaali haka nabado markay sii socotaba siyaasadda lugta gashanaysa ilaa ay gaartay 1947 markii Yaasiin dhimanayo meel Soomaali jirto ayaan ka furayn ma jirin Soomaalidii oo shanta meel loo kala qaybinayay NFD xoog buu uga furnaa dhinacan Ogaadeni waxay xisaabsaneed Soomaaliya markaas waxa laga xukumayay xamar baa laga xukumayay dhinacan waqooyi hadda waa ka furnaa qadan oo ka go'an dalkeena Soomaalidu joogto uga furnaa magaceedii Tanzania Soomaali joogto Arusha oo ku badneed waa uga furnaa England Soomaalidu joogto waa uga furnaa marka Soomaalidu banaanka hadalka saas ugu faafo haweenka Soomaaliyeed qayb libaaxa ay ka soo qaateen markii ururka la sameeyay iyo leegada intaba iyo halgankii gobonnimo doonka qayb weyn bay ka qaateen dagaalkii dhagax tuur
way ka qayb galeen waxay ka qayb galeen oo kaleeto dagaalkii 48 talyaaniga lagula diriray waa ka qayb galeen dahabkoodii kuwaa gaday dahabkii iska daa wax kale dahabkoodii gaday dagaalkii ka dhacay Kismaayo jimcay ahayd bishuna kow bay ahayd dagaalka hadduu ka dhacay hujuum baa nala ku soo qaaday halkaasaa nala ku laayay annana halkaasaan wax ku laynay dabadeedna waa nala xirxiray biyo maanyaa nala siiyey meeshii baa aad naloo garaacay aad baa naloo dilay wixii leegada ahaa waxaan xirrayn 2 sano baan xirrayn 2 sano qaarka iyaga waa la waday Maymundaa loo dhigay cimriga iyagaa nala ku xakumay dagaalkaasna waxaa u badnaa haween anigu sabtidii dadkii la keenay baan ahaa aniga gabar dhofaad Masciid gabar la dhaho anigu gabar baan ku dhalay gabareed Brima Agostaan la gabar Aamintoy la dhaho Aamintoyna iyo gabar bay ku dhashay way dhimatay gabadhii kaarjilaa ku dhalatay intii hadda tayda baa ka nool Brima Agostaan ka nool xornimadu haddaan loo dhimanin lama gaaro haddaan la isu loo rafaadin lama gaaro haddaan la isu misaafirinin lama gaaro intaba raalli baan ku ahayn dagaal ha bilaabo oo daar ha nagu qafilo dab iyo baaruud ha nagu daara rag iyo dumar dabaadiga naga haraa dowladnimada heli dahaba ina muuse daarigaada iyo xumaan xamaali ha naga dhigo xaar ha nagu daldalo xaakimada leegaa xumay sida xujuri xorriyadii loo rafaado xaqiiqan noqon kama xanaaqayn caalka talyaaniga وما هذا اللي ما انتبه دنيدا كم بيننا وما هذا اللي ما انتبه دنيدا كم بيننا ما انتهينيو ما بيحب بنان ما بيحب بنان guulihii aan gaarnay waxaa ka mid ahaa waa iska caddahay halgankii gobonnimo doonka inaan ku fuusinay waxaa ka mid ah in soomaalidii ay maxaa la yidhaahdaa noqotay dad bisil oo doonahaya wax yaroo aan micno lahayn maahine oo doonahaya inay maxaa la yidhaahdaa waddankoodii xoreeyaan waxaa ka mid ah in markii dambeeto qaran aan dhisnay qarankaasoo bandiirad loo yeelay oo bandiiro Soomaaliya lahaan jirin loo yeelay qarankaasoo adduunkii laga ictiraafay inaan ka mid noqonnay member oo ummadaha midoobay aan ka mid noqonnay dhibaato adag baan soo maray xusbiga ka dhibaato adag buu soo maray idanka ilaahay dhib kastuu soo marayna wuu gaaray marinkii uu rabay waa u gaaray alxamdulilah ashukr maantana waad ogtihiin wax laga haya ma jiraan la isu masaafiriyo wixii la isu dilay wixii la isu xiray wixii candabaqa la isu gashay calankii ahaa silaca lagu keenay ilaahayna noo sakhiray markii dambe dhibaatana aan u maray maantay meel ku sugan yahay wax og iyo wax ka warqaba midna ma jirto marka ugu horeysa waxaan sheegayaa in aan ka xunnahay haddaan nahay raggii asaasiyiintii soo halgamay waxaan ka xunnahay waxaa weeye maantay inaan arkayno dhibaatada Soomaalida ay ku jirto dhibaatadaasoo waddankeedii maantay sharaftii iyo wanaaggii iyo wuxuu lahaa ay maantay hoos u dhacday يعني هوري اسكو كيمي waxa ay moodo wadankuba inuu wareegayo oo la oran doono si Falastiin too kale Soomaaliya jirtay hadda la daba qaban
aniga 10 sano ka bacdi ninka ka saaxiibka oo jaarka iyo cunahayo mas'uulka iga aho ya hadii 10 sano ka bacdi maslax ma hayo aniga wadankan uu wareegaya waa in loo soo noqdo maxaa la yidhahdaa barnaamijkii leegada oo ahaa in la raadiyo isku midnaan soomaali oo dhan isku midnaan maxaa la yidhahdaa walaalnimo isjeclaan in loo soo noqdo wixii tagayna la iloobo faraha laga qaado yaan ku talin hayaa ilaahayna ka baryahayaa in qalbigooda isu soo jeediyo maanta Soomaaliya waxay ku sii socotaa haawiye dabayba hal booraan bay ka dhacaysaa ragga hadda joogaan aniga sida ii muuqanaysa oo darajada u dudahay oo niman kale u riixaya darajada Soomaaliya inay wax ka qabtaan sahal ma ahaanayso marka ama banaan ha joogo ama gudaha ku jira ninkii in yar oo masayrin ku jira ama qeyraha ku jirto in yar oo xumaan ciideed ninkii ku jirto maanta ila qor Soomaaliya isinka Soomaaliyeed ahdiga islaamka urka ka ooyow adkaysano imaan isku keentolayo luqadeena waaxid aho arladeena taaka aho kuma kala tagisaane